munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen madaxda jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika, ganacsatada, aqoon-yahanada, odayaasha, waxgaradka, ardayda, dhalinyarada, haweenka iyo mid ka mid ah walaalaha muslimiinta Hindida ee dalkani Koonfur Afrika oo lagu taageerayay musharaxa madaxweynimada Soomaaliya doorashada madaxtinimada ee dhici doonto sanada 2012 ayaa lagu qabtay hotelka Nooro International ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika Mudane Cabdulxakiim Maxamed Haadi oo ugu horeyn hadlay munaasabadani ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan musharaxa madaxweynimada Soomaaliya Dr. Saciid Ciise Maxamuud oo xilligani marti u ah jaaliyadda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika. waxaan si kal iyo laab ah idiranaan soo dhaweynaynaa Dr. Saciid oo intii martina bedelaad waxaan sidoo kale kaaga mahadcelinaynaa qadarinta aad nabadgelisay haddaan hareer ku furaafay Abdullahi Hussein Miriq oo ku hadlay magaca ganacsatada iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika ayaa sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan musharaxa madaxweynimada Soomaaliya Dr. Saciid Ciise Maxamuud waxaana ballan qaaday in ay hil iyo hoob la garab taagan yihiin garabkiisana ay buuxin doonaan. Dr. Saciid waxa la wixii taageero ah ee ku saabsan South Africa maadaama aad musharax ugu horeeyay ee u yimaado South Africa inaan diyaar kuulan Sheekh Abdulxakiim Tabliiq oo ku hadlay magaca aqoon-yahanada iyo mashaayikhda jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika ayaa musharaxa kula taliyay in uu noqdo nin xoojiya diinta Islaamka si Ilaahay ugu helo garab sidoo kalena shacabka Soomaaliyeed ee Islaamka uu ka heli doono taageero dhinac walba ah. waxaan kula talinayaa professorka iyo inta dooranaysa sifaadka ugu horeeya ee lagu dooranayaa inuu noqdo inuu diin leeyahay oo dadkana uu diinta ku xukumayo takale alxamdulillah South Africa ku soo dhawo Dr. Saciid Ciise Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga dadka ahna musharaxa madaxweynimada Soomaaliya oo ka hadlay gabagabadii munaasabadani ayaa ugu horeyn ka hadlay taariikhda maamuladii dalka soo maray iyo xiriirkoodii beesha caalamka ay la lahaayeen. waxaad ogtihiin isticmaalka ka hor anaga wadankanaga waxaa ka tiri jirtay cuqaalo qabiilo ugaasyo ayaa ka tiri jirtay waxaad ogtihiin Soomaaliya inay ka jireen maamulo tuulo iyo degmo ku salaysan oo ninkaas caaqilka ah oo maamulayay aqliga ninkaas jiifka ah oo lahaana ay waxba ku soconayeen waad garan kartaan inaysan jirin maamul guud inaysan jirin cadaaladda waa garanaysaa qabiilka degmadaas kale ayaa inta kale ka sareeyay ama maartay wuxuu ah. Dr. Saciid Ciise Maxamuud ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay xisbigiisu u ka bedeli karo dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha ay daneynayaan inay ka hortagaan oo ku sheegay inay ka mid yihiin ciidamada shisheeye nidaamka federaalka 4.5 iyo maamul goboleedyada laga badbadiyay. xisbiga dadka muxuu noqon karaa macnihiisa asaantaas uu leeyahay wax xisbi midnimo والنبض مارتي محن وعدالة محن دونينا أنو محوها وحنا هذا إن عن أمة الصوماليات أود يكسرنا self determination إن مارت معنا أمة أيدو أيهلك دونينا إن جرت ذاتك الصوماليات إن الإستان دولة يقول الإستان إليه محن كسر هرجنا عيدا ميليتريا يكيد ما ودك كينيا يودك إثيوبيا مرة حسنين إن حرس مالي ما هذا 4.5 أنا مرة حسنين والنظام خلدان 4.5 حولي 4.5 حولي إن ما أرتم محاه وحلي لهذا مدحونه هو 1 لهذا الرزق هو 1 رزق هو 1 marka hierarchy ma jiro marka isqabsadaan dibna xukula waraareen hal inuu wana tahay waa ka soo horjeednaa maamul goboleed yararka ah oo faraha badan oo la abuuray waa ka soo horjeednaa waxaan doonaynaa in la sameeyo maamul goboleedyo waaweyn la sameeyo muxuu kuwaas oo inta badan u madax banaan inay qaataan cashuurtooda gargaarka ehelkooda dadkooda iyo waxbarashadooda in ayaga ay ku xirnaato waxaan ka soo horjeednaa nidaamka federalismada waa ka soo horjeednaa sababtoo ah federalismadu sida anagu u fahamnay hadaad fiirsaan waddanka Soomaaliya waxa kulmiya qowmiyadda Soomaalida afka Soomaalida diinta Islaamka ma jiraan waxyaabo waaweyn oo kala xiran ma jiraan markii aad u fiirsan wadamada ku dhaqmaa adduunka federaalka waa 7 ama 8 waay ma ka badna oo weyn kuwaas oo dadku kala afihiin kala qowmiyad yihiin kala jihiin ama jiraan wabiyaal iyo buur iyo bad u dhaxeeya jiraan sidaa daraadeed anagu ma aaminsan anagoo yar oo ba shantii inta la qaybiyay laba soo harnay haddana in labada harti kala qaybiyay ma aaminsan anagu. Dr. Saciid Ciise Maxamuud ayaa ugu dambeyn ka sheegay munaasabadan lagu taageerayo inuu yahay musharaxa madaxweynimada Soomaaliya ee doorashada dhici doonto sanada 2012 wuxuuna intaasi ku daray in uusan diyaar u ahayn inuu ka qayb galo doorasho ka dhacdo dalka dibadiisa. Anagu waxaan jecelnahay inaan noqono sida rajeynayno xisbi u taagan doorashada 2012 u taagan
waxaanan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed inaan cadaalad ugu yeerno sinaan ugu yeerno dimuqraadiyad ugu yeerno maartay muxuu wax yaado annagu waxaan aaminsanahay islaamnimada aaminsanahay meel oo dhaafi karna male qofka uu islaamnimada aaminsan yahay Soomaalidu waa muslim islaamnimadaasna anaga maxluumaad macnaha noo ah أنا حرنوه. بروفيسور عبد القادر حسن علمي أو كميد أقوياهنين الصوماليات يكون قندال كني كونفور أفريقيا أي تاريخ قوما كبيحيي مشرح الدكتور سعيد عيسى محمود. بروفيسور سعيد عيسى محمود وحاول تشوني جامعات الصومالية بري أنتي موسى لعلم سيفل وور كل شقيني kulankani oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika ee lagu taageerayay musharax madaxweynimada Soomaaliya Dr. Saciid Ciise Maxamuud ayay dadkii isugu yimaadeen munaasabadani waxay si buuxda ugu taageereen musharaxani lamana oga musharaxani cusub waxa uu ku soo kordhin doono saaxadda siyaasadda dalka Soomaaliya iyadoo ay horay u jireen musharaxiin iyo xisbiye u tartamayay doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya ee soo socda Cabdinaasir Somane iyo Faisal TV Johannesburg.